dagaalka Ukraine imisa ayaa dhimatay xagee la kala qabsaday dagaalka xaguu maraya xogtii u dambeysay kadib markii xalay uu madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu weerar ku qaadayo wadanka Ukraine ayaa waxaa si toos ah daqiiqad kadib u bilowday dagaalkii uu Putin sheegay waxaa la duqeeyay magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine sidoo kale waxaa la duqeeyay dhowr magaalo oo kale waxaa la burburiyay kaabayaashii ciidamada cirka ee wadanka Ukraine Putin wuxuu sheegay in ciidamada cirka ee wadanka Ukraine aysan hadda awood u lahayn sidii hore sidoo kalena wuxuu sheegay in hawada wadanka Ukraine gabi ahaanba lala wareegay gantaala ayaa ku dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ukraine qiiq badan ayaana ka baxaya halkaas mowjadii labaad ee duqeynta oo mar dhow bilaabatay ayaa dowladda Ukraine ay sheegtay in lagu beegsaday xarumo dawladeed iyo xeryo ciidan Putin wuxuu sheegay inay burburin doonaan xeryaha ciidamada aysan beegsan doonin meelaha ay dadweynaha caadiga joogaan afayeen u hadlay ilaalada xuduudaha ee wadanka Ukraine wuxuu sheegay in ciidamada Ruushka ay gudaha u soo galeen wadanka Ukraine gaar ahaan agagaarka magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine haddana uu dagaalka ka socdo meel 35 kilomitir u jirta magaalada Kiev wararku waxay sheegayaan in ciidamada Ruushka ay xoogooda isugu geynayaan inay qabsadaan garoon diyaaradeed oo halkaas ku yaala afayeenku wuxuu sheegay in dhowr helicopter oo ay leeyihiin ciidamada wadanka Ruushka in la soo riday inkastoo wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ruushka ay sheegtay inaysan jirin wax helicopter oo laga soo riday ilaa hadda laakiin ilo xogogaala oo madax bannaan ayaa xaqiijinaya soo riditaanka diyaaradda helicopterka madaxweynaha wadanka Ukraine wuxuu sheegay inay xiriir diblomaasi ay u jareen wadanka Ruushka wuxuuna dadweynaha reer Ukraine ka dalbaday in ay hub ka qaataan ayna difaacdaan wadankooda kaaliyaha madaxweynaha ee wadanka Ukraine wuxuu sheegay in ilaa hadda ay og yihiin 40 askari oo reer Ukraine inay dhinteen duqeyntii maanta dhacday laakiin warar madax bannaan ayaa sheegay in dhimashada ciidamada ee reer Ukraine ay gaarayso boqolaal sida ay qortay jariidada Wall Street Journal ee wadanka Mareykanka laga leeyahay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ukraine ayaa laga maqlayaa dhawaaqa dawanka degniinta oo ka dhigan inay duqeyn socoto ama ay ku soo feeleedahay magaalada duqeyn baan ayaa ka dhacday magaalada Kiev iyadoo hadda war ay qoraysa telefishinka Al-Arabiya uu sheegay in ciidamada Ruushka lagu daadiyay magaalada Kiev gaar ahaan agagaarka wasaaradda gaashaandhigga magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka aynu ku nool yihiin dad gaaraya 1 milyan oo qof 35 kilomitirna u jirto xuduudda wadanka Ruushka ayaa laga maqlayaa qaraxyo waaweyn waxaana la sheegayaa inuu dagaal u dhaxeeyo ciidamada wadanka Ukraine iyo qoliyaha gooni goosadka uu halkaasi ka socdo sidoo kale magaalada Odessa oo saaran badda madow ayaa iyadana waxaa ka dhacay duqeyn aad u weyn iyadoo la sheegay in maraakiib halkaasi taalay ay waxyeello soo gaartay wakaalada wararka Interfax waxay sheegaysaa in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen magaalada Odessa iyo magaalada kaleente ee la yiraahdo Mariupol ee xeebta ku taala laakiin arintan waxaa diiday ciidamada wadanka Ukraine oo sheegay inaysan jirin wax ciidamo ah oo lagu daadiyay labadaasi magaalo madaxweynaha wadanka Ruushka wuxuu ka dalbaday ciidamada wadanka Ukraine inay hub ka dhigaan guryahoodana ay kala aadaan dhanka kale madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu la xisaabtami doono wadanka Ruushka wuxuu intaasi ku daray inuu wadanka Ruushka saari doono cunaqabatayn dhibaato weyn u geysan doonta dhaqaalaha wadanka Ruushka sidoo kale waxaa arinta cunaqabataynta ka hadlaya midowga Yurub ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska ayaa dhinaciisa sheegay in wixii ay ka baqayeen oo ahaa in Ruushka uu weeraro wadanka Ukraine ay dhacday Putin wuxuu nagu qasbayaa inaan goobjoog ka noqono dagaalka ugu xumaa ee Yurub ka dhaca wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka ayuu yiri Johnson ilaa hadda waxaa dhacay 207 duulaan oo dhinaca cirka oo ay qaadeen ciidamada wadanka Russia waxaana la burburiyay difaacyadii cirka ee wadanka Ukraine iyo qaar kamid ah kaabayaashii dhaqaalaha ee wadanka Ukraine dad badan oo reer Ukraine ayaana bilaabay inay isaga qaxaan guryahooda iyagoo afka aadiyay dhinacaas iyo xuduudda wadankooda uu la wadaago wadanka Poland halkaas oo qaramada midoobay ay diyaarinaysa inay xoriyo u oodo dadkaasi si loogu qaabilo madaxweyne Putin oo mar dhaweyd hadlay ayaa sheegay in ujeedadii dagaalka loo qaaday oo ahayd in xukunka Naaziga ee wadanka Ukraine meesha laga saaro ay lagama maarmaan tahay in la gaaro waxay doontaa ku kacday wuxuu intaasi ku daray inuusan rabin inuu qabsaday Ukraine balse uu rabo inuu hubka ka dhigo qoliyaha naasiyiinta ee haysta wadanka Ukraine Putin wuxuu ku celceliyay in la soo weeraray inay amaankooda difaacdaan ay ku qasban yihiin wuxuu yiri waxaan dalbanay inaan damaanad qaad nala siiyo kuna saabsan amnigeena laakiin waxaan weynay cid noo jawaabta waana mid keentay inaan annaga jawaab bixino
afhayeen u hadlay ciidamada wadanka ruushka ayaa sheegay in inta badan ciidamada reer Ukraine ee jooga xuduudda labada wadan ay ka baxeen difaacooda. wuxuu sidoo kale inta sheegay inay jiraan ciidamada reer Ukraine oo isu soo dhiibay ku wadanka ruushka. madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dagaalka ka socda wadanka Ukraine. wuxuu labada dhinac ka dalbaday in caqliga uu shaqeeyo oo wada hadal la bilaabo. wuxuu sidoo kale sheegay in Turkiga ay taageersan yihiin madax banaanida wadanka Ukraine iyo inay tahay mid lama taabtaana. madaxweynaha wadanka Ukraine wuxuu sheegay inuu xiriirka diblomaasiyadeed u jaray wadanka Ruushka, dadkana wuxuu ku baaqay inay wadankooda difaacdaan. war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in dabaabadaha wadanka Ruushka ay bilaabeen inay gudaha u galaan wadanka Ukraine, waxaana jirta diyaaradaha dagaalka ee wadanka Ruushka inay si aad u dul heehaabayaan magaalada Kiev, kuwaas oo xataa isha caadiga ah ay qaban karto. waxaa laga cabsi qabaa in ciidamo lagu daadiyo magaalada Kiev, taasi oo haddii ay dhacdo ka dhigan in dagaalkii Ruushka uu ku qaaday wadanka Ukraine inuu soo dhamaaday, maadaama magaalada caasimada ahayd gacanta lagu dhigayo. ugu dambeyn madaxweynaha wadanka Ruushka Putin wuxuu sheegay in uu aad ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada wadamada galbeedka, isagoo u digay haddii ay ciidamadaasi isku dayaan in ay u hiiliyaan wadanka Ukraine ama ay soo galaan wadanka Ukraine gudihiisa inuu bixin doono jawaab adag oo Yurub oo dhan ay la yaabi doonto.